kulan wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa Warsida TV ku soo dhawaada qodobada wararkan idin hayno kuwooda ugu door korona waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo amray gacan bir ah lagu qabto ammaanka magaalada caasimadda ee Muqdisho madaxweyne Qoorqoor oo ku guuleystay inuu xalliyo xiisad dagaal oo ka taagnayd Muqdisho dawladda federaalka Soomaaliya oo si kulul ugu jawaabtay beesha caalamka oo ka hadashay muddo kordhintii dawladda gudoomiyaha aqalka sare oo ku guuldareystay qorshe ka dhanaha doorashada qaranka intii aad maqasheen daawadayaal waa qodobadii ugu door korona warkayga haatan ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan haddii aad nagu cusub tahay subscribe channelka sidoo kale like saar mahadsanid madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa amray in gacan bira lagu qabto ammaanka magaalada caasimadda ee Muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo kulamo la qaatay saraakiisha kala duwan ee ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu kala hadlay arrimo ku saabsan amniga magaalada caasimadda oo saacadihii la soo dhaafay ay ka taagnaayeen rabshadooyin fara badan madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu amray taliyaasha in si weyn looga qayb qaato sidii ammaanka gacanta loogu soo celin lahaa ciidamada dawladda madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in ay ka go'an tahay in dib loo soo celiyo sharafta iyo karaamadii ay lahaayeen ciidamada qaranku isla markaana waxa uu saraakiil kala duwan oo ciidamada dawladda uu kala hadlay sidii ammaanka loo xaqiijin lahaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa la kulmay taliyaal uu ku jiro taliyaha dhawaangalka ee cusub ee loo magacaabay taliska booliska ciidanka gobolka Banaadir Farxaan Qaroole waxaana uu kala hadlay arrimo ku saabsan sidii gacanta dawladda loogu soo celin lahaa amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana loo adkeyn lahaa farmaajo saraakiisha ciidamada dawladda kula dardaarmay sidii loo dardargelin lahaa ammaanka guud ee caasimadda isla markaana loo joojin lahaa rabshadaha iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee ka dhasha dhanka amni darrada waxaana uu madaxweynuhu kula dardaarmay saraakiisha kala duwan ee ciidamada dawladda sidii markaasi gacanta loogu dhigi lahaa ammaanka guud ee caasimadda isla markaana loo xaqiijin lahaa waxaana uu saraakiisha faray inay qaadaan tallaabooyin lagu soo celinayo ciidamada dawladda isla markaana looga fogaanayo in la siyaasadeeyo amniga guud ee dalka waxaana jirtay in xiisado kala duwan ay ka dhasheen kadib markii la siyaasadeeyay ciidamada kala duwan ee qaranku uu leeyahay isla markaana waxa uu madaxweynuhu sheegay in loo baahan yahay in ciidanku ay noqdaan kuwa qaran madaxweyne Qoorqoor ayaa ku guuleystay inuu xalliyo xiisad dagaal oo ka taagnayd magaalada Muqdisho madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa kaalin weyn ka qaatay in la soo gabagabeeyo xiisad dagaal oo xalay ka aloolsanayd gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho madaxweynaha ayaa waxa uu si hoose ula hadlay saraakiil dhanka dawladda oo ciidamo ku sugnaa gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho kuwaas oo ciidamada dawladdu ay hareereeyeen waxaana uu madaxweynaha maamulka Galmudug wada hadal ku dhameeyay iyadoo aan xabadi dhicin xiisadii ka aloolsanayd gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu kulamo kala duwan oo dhanka qadka telefoonka uu kula qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya sidoo kale saraakiisha ciidamada dawladda waxaana uu madaxda villa Soomaaliya uu kala hadlay arrimo ku saabsan sidii loo soo afjari lahaa xiisada iyo arbushaada ka dhacday gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho xalay ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ay hareereeyeen ciidamo u watay taliyihii hore ee ciidanka booliska gobolka Banaadir Saadiq John waxaana iyadoo ay xabad dhacin xiisadaasi xaliyay madaxweynaha maamulka Galmudug dhankooda maamulka gobolka Banaadir ayaa madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor kaga mahad celiyay talaabada uu ka qaatay uu xaliyo xiisadii xalay ka aloolsanayd gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho oo wax badan u dhimi kartay amniga magaalada caasimadda waxaana maamulka gobolka Banaadir ay sheegeen in madaxweynaha maamulka Galmudug ay uga mahad celinayaan sidii uu kala qayb qaatay in la xaliyo xiisadii xalay ka aloolsanayd gudaha magaalada Muqdisho waxaana ay sheegeen in madaxweynuhu uu ahaa in isaga madaxiisa ay ku joogsatay xiisadii dagaal ee xalay laga hadalhayay gudaha magaalada Muqdisho mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo ka hadlay xiisadii saacadihii la soo dhaafay ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in xiisadaasi ay ahayd mid ka dhalatay ciidamo fara badan oo uu watay taliyihii ciidanka booliska gobolka Banaadir Saadiq John isla markaana uu dhaqdhaqaaqi ciidan ka sameeyay qaybo kamid ah magaalada Muqdisho taasi oo keentay in ciidamo fara badan dawladdu ay geyso isla markaana la xiro qaybo kamid ah magaalada gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Yare ayaa isagu ka warbixiyay arbushaadii waxaana uu sheegay in ay jiraan dad doonaya inay xiisad ka abuuraan gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana uu dadkaasi u sheegay in markaasi aysan jirin wax dagaal ah oo Muqdisho ka dhacaya isagoo oo tilmaamay inay xaliyeen xiisadii iyo hadal hayntii ka dhalatayba waxa uu tilmaamay in madaxweynaha Galmudug ay uga mahad celinayaan
xilkasnimadii uu iska saaray inuu xaliyo xiisadaasi. Gudoomiye Cali Yare ayaa tilmaamay in ay jiraan dad siyaasadeynaya dhanka amniga isla markaana siyaasiyiin ah oo doonaya in amniga ay ka abuuraan fursad siyaasadeed, isagoo dadkaas kula dardaarmay inay ka waantoobaan arrinta ay qaadeen. waxaana uu xusay in siyaasadda iyo amnigu ay laba kala yihiin isla markaana loo baahan yahay in qof kastaahi uu amniga ka qayb qaato sidii loo dardargelin lahaa. ugu dambeyntii gudoomiyaha ayaa shacabka Soomaaliyeed kula dardaarmay in amniga ay kala qayb qaataan qaboojintiisa, isagoo sidoo kale maamulka Galmudug iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay sugidda ammaanka Muqdisho ay uu sheegay inay uga mahadcelinayaan. waxaana uu shacabka iyo siyaasiyiintaba ka dalbaday in laamaha amniga dawladda lagala shaqeeyo sidii loo sugi lahaa amniga guud ee dalka. Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa si kulul uga hadashay hadal ka soo baxay beesha caalamka. dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay si kulul ugu jawaabtay beesha caalamka oo muddooyinkii dambe hadallo dhowr ka soo saareysay muddo kordhintii loo sameeyay dawladda. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa jawaab kulul loogu siiyay beesha caalamka, iyadoona la sheegay in beesha caalamku aysan ka hadli karin arrimo ku saabsan gudaha Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. wax walbana ay sheegtay dawladdu in loo baahan yahay ay ka hadli karaan kaliya dadka Soomaaliyeed, iyadoona ay dawladdu si kulul uga jawaabtay dhaleecayn iyo hadal jeedin beesha caalamku ay u soo jeediyeen muddo kordhintii dawladda Federaalka Soomaaliya loo sameeyay isla markaana ay u sameeyeen xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. hadallada xanafta leh oo ay muranku dhaliyeen isla markaana ay jeedinayaan beesha caalamku waa mid haatan aan loo baahnayn, isla markaana ay ka digayso dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka. waxaana dawladda Federaalka Soomaaliya ay sheegtay in ay yihiin dal madax bannaan isla markaana loo baahan yahay in arrimaheeda faraha looga qaado oo aan faraha la gashanin. waxaana ay markaasi sheegtay in beesha caalamka ay uga mahadcelinayso garab istaageeda iyo sida markaasi ay u garab taagan tahay, balse aysan ka aqbalayn in gacmaha ay la gashato arrimo ku saabsan gudaha Soomaaliya. dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay si aad uga xumaatay aragtida iyo hadallada bulshada ee qaar ee saaxiibada beesha caalamka iyo saaxiibada muddada dheer dawladda Soomaaliya garab taagnaa, oo markaasi ay sheegtay in sharci darro ay ku tilmaameen in hay'adaha dawladda Federaalka Soomaaliya ay muddo kordhin loo sameeyo. waxaana ay dawladda Federaalka Soomaaliya ay uga digtay arrintaas isla markaana ay sheegtay inay ka baxsan tahay qaanuunka caalamiga ah in dawladda Federaalka Soomaaliya arrimaheeda la soo farageliyo. dadka Soomaaliyeed waxa ay yihiin kuwa ka hadli kara arrimahooda isla markaana xalisan kara, waxaana beesha caalamka ay uga digtay in ay soo farageliso arrimahaas isla markaana ay ka hadasho. dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay ogsoon tahay qataraha ka dhalan kara in la lumiyo horumarka la sameeyay, iyadoona tilmaantay in golaha shacabku iyadoo arrintaasi fiilinaya ay ku kaliftay in ay muddo kordhin u sameeyaan isla markaana ay u codeeyeen 12kii bishan Abriil aan ku guda jirno in muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha kala duwan ee dawladda si loo ilaaliyo hay'adaha dastuuriga ee dalka iyo dalku noqon mid qalalaasa gala. go'aanka waxaa si ballaaran u taageeray daneeyayaasha muhiimka ah ee siyaasadda Soomaaliya oo ay ku jiraan dawladda Federaalka, maamul goboleedyadeeda, maamulka gobolka Banaadir. waxaana dawladda Federaalka Soomaaliya qoraalkeeda ay ku sheegtay in uu yahay mid sharci ah muddo kordhinta la sameeyay isla markaana ay ku caddahay qodobka 47 ee dastuurka ku meel gaarka dawladda Federaalka Soomaaliya. waxaana ay sheegtay inuu awood u siinayo xildhibaanada inay soo saaraan sharciyo gaar ah oo qeexaya xeerka quseeya dhanka doorashooyinka heer federaal. sidaas darteed sharciga uu ansixiyo golaha shacabka 12ka bishan waxa ay ka dhigan tahay in hal qof iyo hal cod doorasho loo hirgelinayo dalka, isla markaana loo jihaynayo dalka in doorasho 2 sano gudahooda la qabto oo qof iyo cod ah, taas oo hore u dalbaday guddiga arrimaha doorashooyinka. sidoo kale dawladda Federaalka ay sheegtay in iyadoo oo la eegayo heshiiskii 17kii Sebtembar ay salka ku hayaan sharciyadan in dalka loo jiheeyo dhanka doorashada isla markaana fursad la siinayo si loo fuliyo arrimo ay ka mid yihiin in dalka uu doorasho helo isla markaana la jiheeyo. waxaana si kasta oo ay tahay looga mahadceliyay beesha caalamka walaacyada iyo sidoo kale saaxiibada kale ee arrimaha doorashada walaaca ka qaba, iyadoo ay sheegtay dawladdu inay ka shaqeynayso in markaasi ay ka shaqeyso sidii xasiloonida iyo nabadgelyada Soomaaliya horay ay ugu sii socon lahayd. waxaana wax walba oo ay saaxiibada beesha caalamku ka xumaanayaan dawladda Federaalku ay sheegtay in ay doonayso inay ka digtoonaato isla markaana ay u ololeynayso sidii mabda'a dimuqraadiga ah horay loogu socodsiinayay. dawladda Federaalka Soomaaliya qoraal ka soo baxay ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli muran xooggan uu ka dhashay muddo kordhin dawladda Federaalka Soomaaliya madaxdeedu ay sameysteen isla markaana ay u sameeyeen xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gaar ahaan aqalka hoose.
gudoomiyaha aqalka sare ayaa ku guul dareystay qorshe uu ka lahaa dhanka doorashada qaranka. gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa waxa uu markani ku guul dareystay qorshe dhanka doorashada uu ka lahaa isagoo oo haatan u jihaystay sidii uu uga hortagi lahaa muddo kordhinta dowladda federaalk Soomaaliya loo sameeyay. waxaana uu gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya uu soo saaray qodobo dhowr ah oo kaga hor imaanayo go'aankii ay gaareen golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya isla markaana muddada 2 sano loogu kordhiyay madaxda dowladda. gudoomiyaha aqalka sare ayaa waxa ay dowladda federaalk Soomaaliya madaxdeeda ay haatan jirtay isku qabteen arrimo ku saabsan sida in gacanta loo geliyo xildhibaanada golaha waqooyi ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya. waxaana xiisada arrintaasi ka dhalatay ay keentay in gudoomiyuhu uu ka soo horjeesto wax kasta oo ay ku dhaqaaqayso madaxda haatan jirtay ee dowladda isagoo oo haatan tilmaamay in sharci darro ay tahay in muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha kala duwan ee dowladda. gudoomiyaha aqalka sare ayaa haatan in labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya loo baahnaa in si wadajir ah ay ugu kordhiyaan muddo kordhinta, balse hal aqal oo kaliya hadii uu sameeyay ay tahay mid sharci darro ah. hal mid hadii uu ogolaaday dastuurku ma siinayo baarlamaanka in hal dhinac oo kaliya la qaato iyo in muddo kororsiga ay sameystaan kaliya hal baarlamaan, ayuu yiri gudoomiyaha aqalka sare oo si kulul uga hadlayay arrimaha ku saabsan muddo kordhintii loo sameeyay dowladda. gudoomiyaha aqalka sare ayaa waxa uu sheegay inay ka wada shaqeynayaan arrinta u dhaxaysa dhanka doorashada dowladda federaalk Soomaaliya iyo muddo kordhinta, balse hal go'aan oo kaliya la qaatay. arrintaasna uu sheegay in ay baalmarsan tahay dastuurka, waxaana uu sheegay in khilaafka haatan taagan uu yahay mid labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya aysan isku waafaqsanayn go'aankii la gaaray. waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in arrimaha doorashooyinka dhanka doorashada la kala dhex dhigo baarlamaanka si isku midana loogu qaado codka. gudaana daawadayaal warka aad kala socoteen warsida TV wanaga intaa nabadgelyo.